wasaaradda caafimaadka iyo xukuumadda Soomaaliya guud ahaan oo kaashanaysa saaxiibadeeda caalamiga ah waxa ay ka shaqaynaysaa sidii dadka Soomaaliyeed ay ku gaari lahayd adeeg caafimaad uu ku gaari lahaa meel walba si gaar ah meelaha muddo badan sanado badan aan helin adeeg caafimaad ee ay haysteen kooxaha khawaarijta ah ee hadda la xoreeyay iyo kuwa la xoreyn doono sida ay ku heli lahaayeen adeeg caafimaad ay ku heli lahaayeen in ay ka shaqayso ayaa ka go'an wasaaradda iyo xukuumadda guud ahaan waxaan u mahadcelinaynaa saaxiibada caalamiga ah ee dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda caafimaadka ka gacan siiyo hirgelinta adeega caafimaadka ka gacan siiyo waxaa jiro laba dokumenti oo ay diyaarisay wasaaradda caafimaadka oo loogu talagalay mid waxaa loogu talagalay in lagu hago hay-adaha kala duwan ee ka shaqeeya caafimaadka waxyaabaha ay xoogga saari lahaayeen in lagu mideeyo awoodahooda si looga fogaado kala jajabnaan iyo qof walba inuu meel xoogga saaro si looga fogaado dokumentiga labaadna waxa uu xoogga saarayaa qorshaha istiraatiijiga ah ee health ee caafimaadka qorshaha istiraatiijiga caafimaadka oo la dejiyey 2022 oo loogu talagalay ilaa in lagu hago 2026 laakiin review lagu samayn karo wax laga bedeli kara 2 sano kasta waxaan doonaynaa dokumentigaas asigana inaan hormarino si maxay ahayd siyaasadda caafimaadka mar kastaba loo sii hormariyo dokumentigaasna in horumarna ku sameeyno dokumentiga kale ee loogu adeegayo lagu gaarsiinayo adeega caafimaad ee asaasiga bulshada lagu gaarsiinayo si tayo leh oo wax ku ool ah raqiisna ah bulshada lagu gaarsiinayo ayadana haga uu noqon doono dhammaan ururada ka shaqeeya caafimaadka waxaan u mahadcelinayaa dhammaan inta ka soo qayb gashay munaasabadan iyo inta ma aragtay ka qayb qaadatay hirgelinteeda iyo dhammaan inta ku howlan in wasaaradda caafimaad ay gacan ka siiyaan adeeg gaarsiinta bulshada Soomaaliyeed